بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إلهي سبحانه وتعالى القرآن كقصص بدن بو كغا ورميا taariikh badan oo bini aadamku soo maray iyo loolankii bini aadamku uu xaqa iyo baatilka u galay. waxaa kaloo ilaahay ka warramaya subxaana wa tacaala qoysas soo jireenoo hore iyo xidhiidhkii dhex maray marka diin la eego. ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa aabbe iyo wiilkii oo diin isku waafaqay isuguna gargaaray, sida labadii nebiye kacbada dhisay, nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil. waxaa kaloo cagsigooda ilaahay ka warramayaa aabbe iyo wiilkii oo diin ku kala tegey, sida nebi nuux iyo wiilkiisii. waxaa ilaahay qur-aanka kaga warramayaa adeer iyo inanku adeerka u ahayoo kala tegey, sida nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo camu abi aalib waan diin isku waafaqin. idan qoysaska bini aadamkaee taariikhda soo maray wax ka mid oo badan baa qur-aanku wuxuu tilmaamayaa xidhiidhkii u dhexeeyey mawaaqiftii ay kala qaateen dadkii isdhalay ama wada noola. waxaa kaloo qur-aanku uu ka warramayaa dumar aada u badan. dumarkaasi oo qaar nebiye qabeen, qaarna boqorro qabeen, qaar dhallinyaro ahaayeen, iyo mawaaqiftii xaqa ay iska taageen. matalan ilaahay wuxuu ka warramayaa nebi ibraahim iyo laba haweena oo uu qabay oo mutadayiniin oo diin ugu gargaaray. haajara gabadhii la odhan jiray umu ismaaciila iyo saara oo umu isxaaqa, oo labadaba ilaahay karaamaadkooda uu nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista ku tilmaamayo, qur-aankuna si duuduuban uu tilmaamay. waxaa qur-aanku ka warramayaa dumar nebiyada ka hor yimi, sida nebi yuusuf iyo gabadhii damacday inay xumaha u horseedo, iyo niswadii dhammaa kooxdii kale ee dumar ee markii dambe ku raacay oo dhammaantood xaqa hor taagnaa. waxaa kaloo ilaahay qur-aanka kaga warramayaa nebi 5 dumari ku xeernaayeen oo noloshiisa ay qeyb weyn ka qaateen. nebiyullaahi muusa 5 dumara oo midi dhashay oo naas nuujisay oo badda ku riday oo u cabsanaysay, oo midi ilaalinaysay oo walaashii ahayd oo soo bidhaaminaysay, oo laba markii dambe uu xoole u waraabiyey oo ay xidideen oo aabbahood uga shafeeco qaaday. ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin ay ku tilmaamayeen. oo midi soo korisay oo aasiya bintu musaaxim, fircoon xaaskiisii oo iyadu soo korisay. waa qur-aanku 5 dumaruu ka warramayaayoo nebi muuse ku weegaaran, hooyo iyo walaal iyo xaasba leh. waxaa qur-aanku uu ka warramayaa dumar boqorra aha oo ay nebi boqora isqabteen. gabadhay mufasiriintu balqis ku tilmaamaan saba gabadhii haysatay, iyo nebiyullaahi sulaymaan, iyana yaman bay boqorad ka ahayd. nebiyullaahi sulaymaan naaradu shaam falastiin buu joogay. waxaa qur-aanku ka warramayaa nebi ciise calayhi salaam iyo 3 dumaroo ku xeeran, hooyadii oo maryamo ah, ayaydii oo imra'atu cimraan ah, habaryartii oo umu nebiyullaahi yaxya ah. 3 dumaroo ku weegaaran ayaa qur-aanku ka warramaya.
waxa uu quraanku ka warramaya kuwa cagsigooda oo ah kuwa nebiye qabeen oo iyaguna gaala ah sida nebi nuux xaaskiisii ama nebi luut xaaskiisii waxaa kaloo ilaahay qur-aanka kaga warramaya kuwa hore aynu soo sheegnoo dhammi waa dad ama iswaafaqay ama iskhilaafsan islaamnimo ama isku waafaqay ama u kala tegey qaar gaalnimada isku waafaqayna ilaahay uu ka warramaya ومثلا أبي لهب حمالة الحطب تيسي كبدي أبو لهب قبي يهوين يديسي وحاصرنا القرآن كور رمي هل قبر قرآن إلهي مقعد الشارع انت كلمة قعود القرآن كميال انت كلمة قعود القرآن كميال وهي قرآن كسيدة بدن إلهي وحكو شيئا مواقفته إيا ميلها يستاقين إيا دادكو حقا انت يوجر سدين لكن شخصية ديسو هبل إن لا يرادية من الهبلايين ودقناية مهمة سيدا وقيد قبرنا مريم لا يرادو قرآن كسوع العلي ودور يلا واتنشر مقعدوا إلهي كتاب كيسكو يالا waxaynu markaa caawa isku daynaa inaynu in yar isku taagno 6 dumar ah oo hal suurad ku soo wada aroray suuratu taxriim waa 6 haweena laba waa la wacdinayaa labana gaalnimaday tusaale ku yino tusaala looga dhigayaa iyo hadday wadadaa qaadaan waxay la kulmayaan labana khayrkay tusaale ku yihiin marka waa 6 dumar ah oo 4 labana gaalada ka soo jeedo labana muslimka ka soo jeedo iyo laba la wacdinayo labada la wacdinaya oo ummahatul muuminiin labadii ka mid ahaa xafsa iyo caaisha say culimadu u badan yihiin suuradda culimadu laba riwaayadood oo midna bukhaari iyo muslim soo arooriyey يا أبو داود يا نسائبة يا ميدو سو أوروريي إمام النسائي يا قصة أوروري ولا بقى قصة الماما يلا بدو إليه وكسو دكتي وهوين كدمر كقيب كمده أسكو هناسي وكدمر كو لما حسبي هاي لما جاشان بور بكرا نقضي مركا قولو عاشا يا حفصة يا جروب كانوا كتيران أي نوع من هناسا قلنا كلا قيب كم إذا أبو ملب ساعة بين نبيه يتناول حيدا هذا الملب كان عبيسين النبي مركا هسه مركو توي ما دوا حيتر هذا مغافير بعد ما أنت حاجات مغافير كساعة مغافير كوا جيت أنا رفع عينين ورفع عينينا مغافير ما نعبين بيقول زينب بنت جحش يقول جيت بقى كساعة بين ملب ما مغافير بكاورة يبكوا هذا قلنا قرنا يبكوا تسوى قصة العسل البالينا صدي ملكو قصة صار السكالة وحيت الماما يصار ويسأل الله بدن دمرونا إني ماريا قبل دي لورن شيري كهناسين دبتنا ونبغى مركي دمبه ربي إنه كدير هذا صددوا مفسرين تو سيدا ابن العربي يا إمام القرطبي يا ابن كثير يا ابن عاشوريو قضية مرض كي حوشينا يعني سورة كسودكتي مفسرين كلا سيدا ابن عطية يا القاسمي يا كواسي فهي حوشينا يعني قصة جارية دينا كسودكتي مفسرين كلا سيدا إمام الطبري يا إمام البغوي يا الرجل لما يجوا حيلين مو أسكو مثل ما ذكرنا له أنا بقصده وحين بيشيجيسا أيا كانت أمام الله بهالنقطة أما إن هواني هالنقطة وحي شيجيسا الله بدو مرة والنبي عليه الصلاة والسلام اسكت دي إن نوع ما وركيسي نفافيان وحو استعمالي إن إسكهر تاجا لبدا الدمر إلهي سبحانه وتعالى وحقول إن تطوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إلهي توبت يا نسان وواعتين با إلهي لي فقد صغت
قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. هذا يسوع قاشم بوريستين النبي عليه الصلاة والسلام وحلا يدين شيء إن إلهي يا ملك الجبريل يا مؤمنين الصالحة يا ملائكة بقى شبورت الله إني مركايهين ضايدون قرن قبطين وحا نبي عليه الصلاة والسلام هيلين إياه الله فإن الله هو مولاه يا جبريل يا صالح المؤمنين يا والملائكة بعد ذلك ظهير مركزا إلهي هدنا وحط المام عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن حالا كهدو يدن فربا إن إلهي سبحانه وتعالى وبدلي دونه هوين كاله ومسلمات ومؤمنات وإلهي أطيعية وتوبت كينية وعبادة بدن وصايحات وقبل يعرم البله لبدا هوانا وأمهات المؤمنين ردت في عن كمدها صحابتي وأوينت كمدها عاشوا من أوعية العلم ولا شوقوا وإن علم يسدي صحابة كمدها لكن مركا كانوا خطأ سكدعي أي إلهي سبحانه وتعالى أتلمام يا طريقة صحة إني مرة قصة مركا إنكو أنو تشيدنا وأفرط الدنبي إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامية وينوغا ورمية الدمر إني مواقف قاطع تلادو إني يغا كقوضو إناني كحدنا إنك قبي وحو رميسنا يسيدو وحو أركيي إني كحدنا تهي إيادو وحي قوان سطو يميشي إسكتاك تحقا إلهي مركا هوين كاسي وحو ماهي أما تصالى ودقى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إلهي وحو تصالى إذن كدقى يابا إلهي لي كوا قالوا بي قال تصالي هي هدات غبطوه labadan haweena u qaadaba ilaahay leeyahay bini aadamku marka uu xaq diido qalbiga daboolma labada ilaahay uu inoo siinayo tusaale guri nabi bay joogaan hadana wax igu mari maayo waa guri nabi oo wax ku soo dagayo ayay joogaan ومع ذلك موقف دركسن بانay taagayn haweenaydu nabi nuux qabay iyo haweenaydu nabi luut qabay labaduba inta la halaagay bay kamid yihiin haweenayda nabi nuuxna kuwii la halaagay ku jirtay ay culimadu tilmaamayaan haweenaydii nabi luutna waatii la yidhi ka guuray iyaduna waxay ka mid tahay inta la halaagayay waxay tilmaamaysaa taas qofku inuu mowqifkiisu isaga ku xidhantay ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaade hadduu ilaahay rumaynayo oo uu raacayo in isaga mowqif laga raba ay tahay hadduu ka gaaloobayana inuu mowqif isaga uu istaagay ay tahay si awgeed baa ilaahay wuxuu labada ku tilmaamayaa kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayn laba addoomaha waa wanaagsan ka mida bay hoos joogeen baa ilaahay leeyahay jawaaba laba nebi نبي نوح سقال بقول يكتر سنة الدين شيء وكوري هوس بو شيء وانت الدين شيء يبقى يدك شلاق السين توقع بيقول يجوا نبي لوط انت الدين شيء يعني يدك شلاق السين إلهي وحولي مكا فخانتاهما وخيامية يا مدني ما هقول وخيانة الدين وهو حكوين دين تبي كقبح حنبا إلهي سبحانه وتعالى ما يراعين نبأ قبي مركا كوبد بادي ما يصير هذا الدين تجديد إلهي وحكوت الماما مركا وقيل ادخل النار مع الداخلين إلهي بين وقوة رمينا يهلو نار كالبادي وكمدين وحلقوا النار تلقى لك وقلية وسألك جروبتين الله كورتي
halkay Soomaalidu ka tidhaahdo waa geed biyo ku dhex engegay waa guri nebi dad ku koray oo diinta ka fogaaday ilaahay wuxuu inooga warramayaa kuwa cagsigooda وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلهي وحو تصالة إذن كردك يا بالي قوة مؤمنين تنوحى تصالة وأه امرأة فرعون وين دي فرعون قبي فرعون وكما فرعون وانك قرآن كوين بدن 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 كورمية وانك كبر كوينتو حد نافي dadku xukumay ku xukumay qabaa'il dhan inaanay rag dhalin wixii rag ay dhalaan in la dilo dumarkana in la adoonsado waa ninka intuu dadka shiriyey maxfal kale ana rabbukum al'ala aniga rabbigiina weyna waa ninka kibirku ka gaaray dadweynaha ka kaalay xaashiyadiisii kuwii kaag dhawaaye Haamaan iyo guruubadiisii u watay guruubka laftiisii buu leeyahay ma calimtu lakum min ilaahin ghayri ilaahan aniga ahayn idin garan maayo ilaahan adiga ahayn idin garan maayo ninka halkaa jooga ayaa ilaahay leeyahay hal haweena u badheedhay inay ka hortimaado hal haweena ayaa u badheedhay inay ka hortimaado inta badan dumarku marka aanay xaqa fahmin nolosha iyo dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeeda ay jecel yihiin waman yunashau fi lxilya guriga ay joogtaa waa guriga uu ku faanaya uu leeyahay laysa lii mulku misra wa hadihi lanhaaru tajri min taxtiha afalaa tubsiruun war miydaan arkayn buu leeyahay inaan anigu boqortooyada masar leeyahay waxaan webi hoostayda dareeraya miydaan arkayn buu tilmaamaya waxaan webi hoostayda dareeraya miydaan arkayn buu tilmaamaya waxaas oo nicmo ah ee uu fircoon sheegtay ee qusuur ah ee webiyaal ah ee boqortooyo ah ee dowladnimo ah waxay ka dooratay xaqa inay raacdo waa mowqif aan fududayn boqorka sidaa u kibrayn laga hor yimaado waa mowqif aan fududayn laakiin ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamaya inay haweenay u badheedhay oo ay tilmaamayso inay ka soo horjeedo walidalik buu nabi maxamed leeyahay calayhi salaatu wasalaam saxiixayn ku yaalla kamula min alrijaali kathiir ragga qaar badan baa dhammaystirmay oo dee nebiyi iyo rusulba noqday walam yakmul min annisaa'i ilaa maryama bnatu cimraan wa aasiyatu imra'atu fircawn dumarkase ma dhammaystirmin buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam maryan iyo aasiya mooyaane walidalik bay culamada qaar isweydiiyaan armay nebiya ahaayeen kamaalkan la sheegaya armu kamaalu nubuwa uu tilmaamaya markaasuu nebigu wuxuu tilmaamay wafadlu caaisha cala nisaa'i ka fadli tariidi cala acaam cala saa'iri acaam روايات كلو ابن مردوي وسواء أرورنا ينا مرفوع إسنادkeeda صحيح وابن كثير كتل مامينا وخديجة بنت خويلد بالغدرية إن ينا هو كامل كجاري كم تاعي ساشي سويدين تلا مركها واحد تاعي فرعون كي هنتيدا شاكتي إحروق شاكتي ضدكي بالضوف صدي يعني يقول فاستخف قومه فأطاعوه dadkii wuu fudaydsaday dabeetana way adeecana way dabagaleen ilaahay wuxuu tilmaamayaa haweenaydaas baa ka hor timi oo go'aansatay inay rabbigeed rumayso oo dabeetana ku ducaysanaysaa waxay ku ducaysanaysaa id qaalat rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljanna wanajinii min fircawna wacamali wanajinii min alqawmi alظaalimiin ilaahay waqtaada waxaad iiga dhistaa bay leedahay jannada guri daarahan iyo guryaha waxaan ka doortay bay leedahay guryaha jannada
halaalkan adduunyo oo dhan waxaan dhaafsaday taan laga dhimanayn waxay culimmadu yidhaahdaan qabla daar intaanay daarta dalban waxay dalbatay jaar ka fiican jaarka gurigay joogtay inay ilaahay agtiisa jaar ka noqoto ibni lii cindak bay ka bilowday ilaahu agtaada guri janneed iga sii wanajinii min fircawna wacamali wanajinii min alqawmi aldaalimiin ilaahu fircawn iyo camalkiisa iyo inta daalimiintaaba iga nabadgeli idan aasiya ka hortimi axaadiistu waxay kaloo ka warramaysaa tii u feedhi jirtay ee nabiyullaahi muusena inayana ka hortimi ayana xaqa raacday oo diiday inay fircoon ilaahnimadiisa rumaysato idan waa mowqifkii hore wuxuu ahaa mowqif laba dumara oo durkay oo diinta nacay oo guri nebi iyagoo jooga xaqa diiday kana waa mowqifkaa ka gedisan oo ah iyadoo guri gaal ay joogto oo nin ilaah sheeganaya gurigiisa ay joogto oo boqortooyo haysta oo badhaadhiya barwaaqa adduun gacantiisa ay ku jirto inay waxaasoo dhan ka doorbiday dariiqa rabbigeed inay raacdo masaladu markaa waxay tilmaamaysaa noloshu waa mawaaqif waa meesha aad istaagto ama rag aho ama dumar aho noloshu waa waxa aad go'aansato inaad xaq raacdo iyo inaad baatilka raacdo inaad ilaahay ilaahnimo u rumayso cibaadadiisana laasimtid iyo inaad inta gaalowda iyo inta ilaahay ka fogaatay addaba socotid cid waliba waxbay kuu akhri doontaa haddaad ta ilaahay martana quraan iyo diin baa lagu sheegi doonaa iyo dhaqan iyo xijaab iyo qaab loo noolaado way of life weeyaan diintu haddaad ta kala martana another way of life baa lagu sheegayaa jid kale oo nololeedoo la maro qaab loo noolaado qofku muctaqadku rumaysan yahay caqiidadu haystaa waxa ka dhasha waxa laaliya wuxuu dhaqan leeyahay waxa kaloo ilaahay isla suuraddan ku tilmaamaya wa maryama bnata cimraan alatii axsanat farjaha maryamadii ina cimraan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala maryami waa gabadh iyadoo qiso gaara leh waa gabadh qisadeedu tii hooyadeed ay ka soo bilaabmayso bal إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران على العالمين آل كيدي بقى إلهي كصوب بلا بين يدد صالحين وقبل قوري الصالحة كسو كورتي ويديد هروح مين دالين تبعتنا إلهي بقى بريضي إن إلهي المسيو إلهي مريم بوسي مريم وحي وبالله قاضي إن إلهي قوري سكشقيسو ilaahayna wuu ka aqbalay markay umushay wiil bay moodaysay gabadh buu noqday gabadhnimadaasa ilaahay kaga aqbalay inay ilaahay gurigiisa u shaqayso maryam qur-aanku wuxuu ka tilmaamayaa karaamooyin tiro badan leh inta badan wuxuunbaa maqashaan rag karaamo idiin sheegtaa karaamadan baa laha karaamadan waa awliyaana kan awliya waa kuwan qur-aanku sheegay waa maryam maryam ilaahay wuxuu tilmaamayaa cunadeeda iyadoo meeshay ku cibaadaysasho joogta inay heli jirtay kulamaa dakhala calayha zakariya wajada cindaha mar kastoo uu soo galo zakariya wuxuunbuu ugu imanaya iyadoo rasaq haysata culamada mufasiriintii waxay yidhaahdaan weliba waxa ka sii yaabiyey wuxuu ahaa xilligaa midhaha iyo cunnada la helo cunno aan ahayn bay heli jirtay maalan samarkana dhir baa baxda gaara qaboobahana dhir gaaraa baxda marka xilliga qaboobaha heli maysid dee midhihii go'i jiray samarka waxay mufasiriinta qaar yidhahdaan wuxuu ugu iman jiray xilli walba xilligeeda midhihii aan ahayn oo hadduu kuwa caadigaa ugu yimaado waxaaba laga yaaba inuu sodhan laa cid baa u keentay ama magaalada looga keenay ama cidunbay wax ka soo qaadatay laakiin waxaan ahaynba wixii waddanka lagu haystay iyo meesha yaallay ayuu ugu yimaado
nabiyullaahi zakariya markii uu ka yaabay ee uu yidhi xaggaad waxaan ka keentay waxay ugu jawaabtay ilaahay baa cidduu doona arsaaqa in allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab ilaahay baa cidduu doono xisaab lee arsaaqa qur-aanku wuxuu tilmaamaya hunaalika dacaa zakariya rabba halkaasuu nebi zakariya baryo ka bilaabay isagoo gaboobay waa waxba dhalin oo haweenaydiisii gabowday ayuu wuxuu yaqaansaday dambe iyadoo waxba haysan baa ilaahay wax siiyey adigana soo ilaahay wax kuma siin kara markaasuu bilaabay inuu sheego ilaahay ummadii way caddaada oo lafihii way jabceen oo islaantii waa gabowday oo waxma dhaalayso haddana wiil baa soo bilaabay intuu sheegto wixii hayay oo dhan ayuu wuxuu sheegtay inuu haddana maryam waa gabadha qur-aanku tilmaamayo in ilaahay iiba siiyey iyadoo nin ba arag kalaamo ka weyn baa jirta qof dumara waa nin arag oo haddana ilaahay ilba siiyo ilma dhashay bal aan ilma caadi ahayn nebi dhashay bal aan nebi caadi ahayn nebi karaamooyinkiisa iyo mucjisaadkiisu cajab badan yihiin dhashay nabiyullaahi ciisa maryam waa gabadh say ilaahay u caabudaysa xaqa u raacaysa ilaahay tilmaamayo markay uurka yeelatay ee dadkii iskaga fogaatay ee cidlada tagtay halkaa cidlada in ilaahay ku arsaaqay ilaahay wuxuu leeyahay inay umushaa geed ayay timi waxaa lagu yidhi markaa وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا قلت مرت أمر وقبر فرطي وأمرها وإن كان بلا شيء ونفسها سويت قلت مرت وقبل ما يكسر بليس ربما أقول حكم صرنا مرت والله فرا تبتني دا سبب الله متقابل من كل حتى ولا سوق جويا ما هجيت تمرت أنت ربما تبرر لك يا لكن يدو مرات شفتها لي أصحابه ونادوا جيتك جيتك أصحابه تساقط عليك رطبا جنيا بيلا حقا بسرعة عيا رطب تمر بسرعتين وجنيا وطريقة هي كانت صفرة وهي سبحانه وتعالى وتلما إنه ملك الجبريل الشهري سمفسرته التلمامان هوستة سرية وباللغة بالعادية بينا وقوم بالعادية هل كان هوستة هذا بيا دريرة بيا نعم وحسب كلي واشربي وقري عين عبد وعن وكل دلوك سوالي حصل وحصل له كرامات أيام inay si cajaba u dhalatay inay iyadu iska cibaadaysanaysa arsaaqdeeda heli jirtay in ilaahay ilma siiyey iyadoo aan ninba arag ilmaheedii in ilaahay nebi uga dhigay ilmoo dharabta isagoo saaran hadlayo hooyadii difaacaya ilaahay ka dhigay innii cabdullaahi ataaniya alkitaaba wajacalanii nebiya tilmaamaya oo hooyadii ka difaacaya ceebiya wax kale in lagu sheego inay marka uu mushay ilaahay subxaana wa tacaala halkay joogtay biyo uga dareeriyey إن جت برا كريم ولا لو سوي كل ذلك ما حيكون هالشيء إن جيت ربك سبحانه صفات هو وين القرآن هو الماما يوحى كمدا قبل ثانية هي التي أحسنت فرجها وقبل إنه سنتين عفدة شرحت لي إلى خطيبة إلى سبحانه الله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وحي رميسي إلهي كلمات تيسي إيا كتب تيسي بوين رعض وكانت من القانتين بإلهي إليه انت ربي أطيع له وهو قان سناته يعني كوى عنين جدك إلهي كوى عنين بكم من نغط إذن حفصة يا عائشة إلهي وحوط المامي ولا وعدي مركك واديك كدبنا وحا الله شيء إياك إيا النقبة أفر دمر ومواقف كلا قد سنقاطي
laba jidka naarta raacay iyo laba jidka jannada maray labada jidka naarta raacay waxa lagu tilmaamay waliba guri nabi inay joogeen nabi nuux iyo nabi luut gurigooda inay joogeen haddana inay u badheedheen inay baatilka qaataan labada kalena iyadoo mid ka mid ay joogtay gurigii gaalkiiba ugu weynaaye dunida malaa soo mara fircawn oo gaal weyn ahaa iyadoo gurigiisa joogta inay u badheedho inay ka hor timaado xaqa raacdo iyo maryama oo cibaado iyo dhowrsoone isku darsatay cibaado ay ilaahay caabudayso u go'do ilaahay beydkiisaba ku jirtay ka shaqaynaysay cibaado u go'day iyo dhowrsooni cafiifnimo labadaa shay bay isku darsatay inay cafiifadda noqoto cibaadana laasimto qisadu markaa duuduub ahaan waxay tilmaamaysaa waxba kama jiraan sheekadan se dumarku waa jilicsan yihiin oo ragga iska raacaan iyo ciddan baa raaci kara ilaahay qur-aanku inoogu tilmaamay inaan warkaa waxba ka jirin ilaahay qur-aanku inoogu tilmaamay inuu waxaani mawaaqif iyo go'aamo bini aadamku uu gaadhay inuu amban karo isagoo guriga nebiga ku nool ama dadka nebiyada ugu dhow ah inuu saxmi karo xataa isagoo guri gaal jooga taa macnaheedu waxa weeyaan qof waliba inuu naftiisa mas-uul ka yahay amaama allahina qof walba in keligii la xisaabayo maalinta qiyaamo wadar laynoo keeni maayo adduunka inta badan mashaakilaadku wadar uu dhacaa waddanka haddii dagaal ka dhaco saalix iyo taalixba de waa dhibtu waa gaadhaysaa hadday abaari ka dhacdo saalix iyo taalixba abaartu waa gaadhaysaa haddii barwaaqa ka dhacdo saalix iyo taalixba waa gaadhaysaa idan adduunka dadku wuu isku xidhan yihi oo markii uu nebigu tilmaamay in dadku halaagsami doono waatay tidhe annahlik wa fiina saalixuun ilaahay rasuulkiisiyo meena la halaagaya iyagoo kuwa wanaagsan ay nagu jiraan nebigu wuxuu ku yidhi nacam idaa kasura alkhabar inta xume hadday badato kadeedkiiyo dhibtaa dunida ku arkaysaa aakhirase waa furaadaa baa noogu imanaysaa baa ilaah yidhi wadar laynoo xisaabi maayo wadar ka dowlad laynoo wada xisaabi maayo ka family ka qabiil laynoo wada xisaabi maayo ka qoys reeroo wada socdo laynoo xisaabi maayo ee qof walba gaarkii baa loo xisaabaya qof walbana gaarkiisaa loo weydiinaya mawaaqiftiisa iyo wuxuu go'aansaday meeshuu istaagay wixii aad wax ka qaban karaysay maxaad wax ka qabatay xaqa iyo baatilka kaad u heelisay xaggaad martay qof walba gaarkiisaa loo weydiinaya